kulanti wacan wanaagsan daawadayaal idin lahaantiinba meel kastoo aad joogtaan waxaan halkan idinka soo gudbinaynaa barnaamij toddobaad kasta aad kala socon doontaan Al-Bushra Media Production oo aan ku soo qaadan doono arrimaha dhaqaalaha caafimaadka iyo kuwa ijtimaaciga iyo waliba kuwa siyaasiga ah ee dunida daafaheeda kala duwan qodobka ugu horeeya maanta barnaamijkeena ay ku soo qaadan doonaan waxa uu noqon doonaa arrinka ugu hadalhaynta badan ee toddobaadkan dunida oo dhan iyo saxaafadda adduunkuba ay sida ballaaran u qaadaadhigaysay oo ku aadan muxuu yahay waxa lagu magacaabo heshiiska qarniga ee qorshaha nabadda bariga dhexe kaasoo uu Mareykanku hormuud ka yahay isla markaana ay garabada iyo maamulka maqaarsaarka ah ee Falastiiniyiintu ku macneeyeen dhirbaaxadii qarniga ee bariga dhexe وصفقتكم المؤامرة لن تمشي. heshiiskani ma yahay mid soo afjaraya colaadda dabada dheeraatay ee qarniga dheeraadka ka dhex taagnayd Israa'iil iyo Falastiin qorshahani ma yahay mid soo gabagabeynaya colaadda iyo khilaafaadka wajiyada badan ee dhinacyada dhaqaalaha siyaasadda iyo militariga ee ay ku loolamayaan dawladaha sheegta awoodaha ee ku jihaysan gobolkaasi heshiiskan ayaa xalkiisa cuneen madaxweynta iyo boqorada carabtu ee ay ku bedesheen masaalixdooda iyo inay kuraastooda ku fadhiyaan muddo dheer heshiiskani oo ay qolyaha naqdiga ku macneeyeen waxay ugu yeedheen New Balfour Declaration oo ay ula jeedaan qorshihii 100 sano ka hor lagu bixiyay dhulka Falastiin looguna xalaaliyay Yuhuud qorshahani ma yahay mid u damaanad qaadaya Israa'iil inay ka joogsadaan gantaalaha kaga imanaya kooxaha wax iska caabinta iyo garabyada hubaysan ee reer Falastiin mise ma yahay mid xasilooni iyo dawladnimo madax bannaan ay ku helayaan dadka reer Falastiin ee nolol maalmeedkooda ay ka mid noqdeen duqeynta diyaaradaha dagaalka Israa'iil gelitaanka ciidamada lugta ee maamulka Israa'iil iyo sidoo kale gaadiidka loo yaqaan cagaf-cagafyada ee sida joogtada u burburinaya guryaha Falastiiniyiinta daawadayaal intaasi waa su'aalaha korkaxaatiga ah ee ka dhashay arrinta mashaqada badan abuurtay ee toddobaadkii hore waa shirka jaraa'id ay wada qabteen madaxweynaha dawladda Mareykanka Donald Trump oo midida daabkeeda haya iyo ra'iisul wasaaraha Israa'iil Benjamin Netanyahu oo qorshaha ku aadan nabadda bariga dhexe oo ah dhagar mar labaad loo soo maleegay dadka reer Falastiin waxaana soo wada jira barnaamijkan idin la socodsiin doona maalin kasta isla markaana halkan ka soo baahin doona anigoo Cali Daahir Maxamed Boos iyo Cabdi Samed Axmed Yuusuf waxaanu daawadayaal ballan qaadi doonaa in aanu saacadaha soo socda idin soo gudbin doono xogo faahfaahsan oo ku aadan arrintan iyo arrimaha qariibka ah ee dunida ka socda daawadayaal meel kastoo aad nagala socotaan waa bahda Al-Bushra Media Production oo idin leh kulanti dambe oo xiiso leh iyo nabadgelyo